Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Walaalahayga qaaliga waan idin salaamay meel walba adduunka daafiisa aad ka joogtaan. Waa walaashin xayaad oo idin leh mar kale iyo kulanti wanaagsan. Kuna soo dhawaada channelkayga Cooking with Xayaad insha Allah. Maanta waxaan idiin wadaa muuqaal cusub iyo video cusub sida aad aragtaan. Walaalahayga qaaliga ah waana ka faa'iidi doontaan sida aan rajeynayo. Fadlan haddaa igu cusub tahay kusoo dhawow channelkayga mar labaad iyo mar saddexaad insha Allah. Haddaa hore noola sii joogtayna waad ku mahadsantihiin daawashadiina wacan. إن شاء الله marka walaalahayga qaaliga ah maanta waxaan sameysanay cashadan aad aragtaan ma sha Allah sidoo kalena quraac waa ka dhigan kartaan hadba kii aad adiga jeceshahay waa casho ama quraac borotiin leh oo aad ilmaha u korisa ma sha Allah sidoo kalena dadka waaweyn qofkii rabo inuu isnaaxiyo ama hilib doonayo insha Allah wuu ka faa'iideysan karaa oo yacni qofka caatada ee ka badatay oo kale wuu sameysan karaa alaabtan insha Allah inkastoona hilibka wanaagsaneen ama buurnida aadka u badan laakiin qofkii doonayo ha ka faa'iideysto biidnillaahi kariim walaalahayga qaaliga ah markii aan dhameynana sida aad aragtaan ayay ku soo baxday haddana daawasho wacan sidii aan u sameeyay welcome bismillah walaalahayga haddana waan bilaabanaynaa biidnillaahi kariim waxyaabihii aan ka sameeyay ama rasabiga ayaa halkan ii yaala sida aad aragtaan halkan waxaan ku haystaa hilib chicken oo sida shawarmada aan usoo jarjaray ama si dhaadheer aan usoo jarjaray hadba saad u fahmaysaan insha Allah waa chicken breast ama steak hadba saad u taqaanaan halkanna qudradii ayaan ku haystaa oo kala duwan dhowr nooc ah waxa ugu horeeyo waxa waaye zucchini baradho xabad baradho ah xabad kaarood ah xabad basal ah basal guduud iyo basal cad iyo barbaroonigi guduudna ama paprika marka insha Allah wuxuu idil waa xabad xabad ama mid hadba saad u fahmaysid af Soomaali insha Allah sidoo kale waxaan haystaa xawaajiyadii ama spiceski aan ku darsan lahaa oo aan ku carfisan lahaa cunadeena maanta ama cashadeena caawa biidnillaahi kariim dhowr nooc ayaan haystaa curry powder iyo mixed herbs waaye iyo turmeric ama huruud sidoo kale waxaan haystaa xawaashkan kale isagana oo lagu darsado suugada oo dressing waaye markii aad suugada ka dajisid ayaa lagu darsadaa ama aad ka qaadi doontid biidnillah sidoo kale waxaan haystaa filfisha madow iyo mixed spices oo ah xawaashiyo isku dardar ah ama xawaajiyo badan oo la isku daray oo la soo shiiday insha Allah oo la soo diyaariyay soo marka hadda waxaan karinayaa chickenkeeni ama digaageeni marka ila socda walaalahayga dhanka iyo stoofka ayaan haddana aadaynaa biidnillaahi kariim in haddana walaalahayga qaaliga ah waxaan soo saaray dabka baankii aan ku karin lahaa ama digsi insha Allah wixii marka adiga aa haysatid gurigaaga ku yaala waxaan ku darsaday saliid sunflower oil oo ah 2 furka saliida ku daboolan ama 2 malqaacad wixii marka adiga aad ku cabiranaysid adiga ayaa qiyaasta kulay garanaya saliida aad isticmaali doontid biidnillaahi kariim aniga waxaan isticmaalay 2 fur oo caaga furkiisa ah insha Allah saliidan aad ayay caafimaad badan tahay una wanaagsan tahay dhanka healthiga walaalahayga ka faa'iideysta ayaan idin leeyahay booska saliid cadayda iyada ayaad ku bedelanaysaa insha Allah haddana waxaan ku darsaday xabadii basasha ahayd ama xabad basal oo aan soo jarjaray insha Allah waa basal guduud sida aad arkaysaan aad ayaan usoo jarjaray walaalahayga qaaliga ah marka hadda waxaan sugayaa inta ay ii yara guduudanayso basasha ama brown oo ii noqonayso insha Allah waxaan haystaa haddana 2 xabo oo bahalkii ah ii sheeg toon ah afwan waan ilooway 2 xabo toon ah ayaan haystaa magaceeda ayaa ii gambiyay marka insha Allah toonta ayaan soo budeynayaa walaalahayga toontii waan ku soo daray insha Allah haddana waxaan ku darsaday digaageeni ama chickenkii ii jarjarnaa marka hadda waan walaaqayaa sida aad aragtaan ama waan isdhexgelinayaa basashii iyo toontii iyo digaagii hilibkii digaaga ahaa sida aad u walaalahayga haddana waxaan ku darsan doonaa insha Allah xawaashiyadii kala duwanaa waxaa ugu horeysiinayaa huruudii turmeric ayaan ku darsaday sidoo kale insha Allah filfisha madow ayaan isticmaalayaa iyo xawaashiyadii mixedka ahaa oo isku dardarka ahaa insha Allah waxaan ku darsaday haddana cusbo yar ama milix qaandada afkeeda hore waaye insha Allah aniga maraq digaag ma isticmaalo walaalahayga qaaliga ah dhowr marna waan idin sheegay soo marka maraq digaaga healthy ma ahan kulay aniga ma isticmaali iska dhaafa ayaan idin dhihi lahaa idinkana biidnillaahi kariim
goordhow waan ka qaadi doonaa axbaabi fillah. Hadda waan is yara dhexgelinayaa. Waxaan sugayaa ilaa 7 daqiiqo ayuu dabka ii saarnaan doonaa biidnillaahi alkariim. soo marka chickenkana aad ayaan usoo yaryareeyay sida aad aragtaan oo dhuudhuub ayaan ka dhigay. marka insha Allah hadhow markii aan ku habeen doono waad arki doontaan sida aan u dhigi doono ama aan u isticmaali doono biidnillaah. haddana axbaabi digaagii ayaan ku ridanayaa weel. soo marka waxaan rabaa in aan baanka ku kariyo wax kale insha Allah. waana arkaysaan stepka labaad aan mari doono ama waxa labaad ee aan karin doono biidnillahi alkariim haddii aad ila socotaan. soo marka hadda saxankan ayaan soo diyaarsaday oo aan ku ridanayaa sida aad u jeedaan walaalahayga. cashadan aad ayay u macaan badan tahay. sidoo kalena quraac waa ka dhigan kartaa sida hore idinkugu soo sheegay. caruurtiina uga faa'iideeya insha Allah waana ka heleysaan biidnillahi alkariim. haddana walaalahayga step 2 ayaan usoo guda galay. isla saliidii aan ka qaaday digaaga ayaan waxaan ku darsaday xabad basal ah oo aan si yaryar usoo jarjaray sida aad arkaysaan. aad ayaan usoo yaryareeyay. waan walaaqayaa sida aad u jeedaan basashii. soo marka 2 daqiiqo ayaan sugayaa inta uu kalarkeeda iska bedelayo ama brown ay ii noqonayso biidnillahi alkariim. waxaan ku darsan doonaa in yar oo saliid ah. saliidda ayaa igu yaraatay sida aad arkaysaan. marka hadda waxaan ku darsaday walaalahayga karoot iyo baradho. waa qudaartii aan idin tusayay. karootka iyo baradhada waan soo hoolay oo waxaan ku hoolay iyo sukiinigaba waxaan ku hoolay birta karootka loogu talagalay in lagu hoolo ama lagu xoqo hadba saad u taqaanaan insha Allah. marka sukiinigana waa kaay sida aad u jeedaan. waa bocor isagana bocorada ka mid ah. waa bocor cagaar. marka insha Allah walaalahayga waan is dhexgelinayaa sida aad u jeedaan si ay isu dhexgalaan qudaarta ama qudrada biidnillaah. waan walaaqayaa. marka insha Allah goordhow waxaan ku darsanayaa xawaashiyadii. xawaashiyada waxay ka saacidayaan inuu dheriga ku macaanaado aadna u udgoonaado masha Allah. marka walaalahayga qaaliga ah huruudana aad ayay u caafimaad badan tahay. ka faa'iideysta. waa huruud organic ah insha Allah. sidoo kalena waan idin soo gelinayaa iyadoo siyaabo kale loo isticmaalayo. aad ayay u caafimaad badan tahay masha Allah. ana waan ka helay masha Allah. wali waxaan walaaqayaa qudaarteeni. waxaan ku darsanayaa hadda biyo yar in yar oo biyo oo aan badneyn si ay yacni ugu yara bislaato ama ugu huurto. soo marka qudradan uma baahna biyo badan oo aad ka buuxisid. wax yar oo kaliya ayaad ku darsanaysaa biidnillahi alkariim. waana ku dabooleysaa si ay ugu huursanto walaalahayga qaaliga ah. markii aan ka jadin rabana waan idin tusayaa insha Allah. oo intaa yar waxaan doonayaa inay ku yara bislaato oo aan ku huuriyo insha Allah. marka walaalahayga ila socod wanaagsan ayaan idin leeyahay abaabi fillah. haddaad nagu cusub tahay nagu soo dhawaaw channelkeena. haddii aad yacni hore subscribe u saarin hadda subscribe saar. sidoo kalena gambaleelka furo si aad ula socotid cashar walba oo aan soo geliyo uu kuugu soo dhaco insha Allah. hadda waan daboolay walaalahayga. hadda waxaan ku darsanayaa walaalahayga cusbo. in yar oo cusbo ah ayaan ku darsaday sida aad u jeedaan. waan ku walaaqayaa insha Allah. goordhow waan ka qaadi doonaa biidnillahi alkariim. intaa kadib walaalahayga qaaliga ah hadda waxaan ku darsanayaa waa ugu dambeyntii barbarooni iyo basal cad. barbarooniga noocaan isticmaalay waa kan cas ama casaanka ah ama guduud hadba saad u taqaanid. adiga kii aad haysatid waa isticmaali kartaa hadduu yahay kan akhtarka ah ama kan yelowga ah insha Allah. marka hadda waan ka dejinayaa goordhow waxaana ku ridan doonaa weel sidaa ila socda walaalahayga qaaliga ah biidnillahi alkariim. diyaar waaye hadda insha Allah. waxaan soo diyaarsaday walaalahayga baaquli yar ama weel aan ku gediyo qudaartii aan soo kariyay. sida aad u jeedaan aad ayay u karkaraysaa oo waqiiqaysaa. waan ku gedinayaa biidnillahi alkariim. baaquliga ayaan ku gedinayaa insha Allah. ila socod wanaagsan ayaan idin leeyahay walaalahayga step by step sida aan u sameynayo cashadeena caawa. waana ka heleysaan insha Allah. waan soo daboolay walaalahayga. haddana waxaan sameysanaynaa cajiinkeeni ayaan qasanaynaa sida aad u jeedaan. halkan waxaan ku haystaa xabad ukun ah ama beed wax yaroo milix ama cusbo ah
biidnillaah. Sidoo kale sonkor 2 qaado ayaan ku darsaday. Waxaan kaloo haystaa caano, koob caano ah iyo 2 bakeeri oo bur ah ama daqiiq insha Allah hadba saad u taqaanaan. Caanihii ayaan ku daray, waan isku walaaqayaa. Intaa dabadeed burkii ayaan ku darsanayaa walaalahayga qaaliga ah. Koobkii koowaad ayaan ku darsaday sida aad arkaysaan ahbaabi. Waan ku walaaqayaa waxaan ku walaaqayaa caaga yar aan haysto. Adigu wixii aad haysatid ayaa ku samaysan kartaa. Gacanta waa ku qasan kartaa, sidoo kale mashiin ayaa ku garaaci kartaa ama aad ku shiidi kartaa mashiinka cabitaanka. Waxaan ku darayaa hadda huruud yar walaalahayga qaaliga ah. Cuno walba aan karsanayo huruudda waan isticmaalaa, aad ayay u caafimaad badan tahay. Caafimaad ayaan ka dareemay insha Allah. Idinkana waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad isticmaashaan biidnillaahil kariim. Hadda burkii koobkii labaad ayaan ku darsanayaa walaalahayga qaaliga ah sida aad u jeedaan. Waan isku walaaqayaa insha Allah. Caanihii ayaan ku daray haafkii dhinna biidnillaahil kariim. Si wanaagsan ayaan isku soo dhexgelinayaa ama aan u soo garaacayaa. Waa arkaysaan walaalahayga qaaliga ah sida aan u garaacayo. Si wanaagsan ayaad u garaacaysaa haddii aadan mashiin haysanin. Haddii aad mashiin haysatidna mashiinka ayaad ku soo garaacaysaa biidnillaahil kariim ama aad ku soo shiidaysaa saa hore idinkugu soo sheegay. Marka aniga hadda spatula-gaas ayaan ku garaacayaa ama caaga loogu talagalay cunnada in lagu qaso biidnillaah. Caano yar ayaan ku kordhisanayaa oo waxaan rabaa in uu yacni khafiif ii noqdo. Waa malawax cajiinka aan qasayo. Diyaar waaye hadda walaalahayga. Waxaan soo aaday stoofkii, bir ayaan soo saartay ama baanka lagu dubo pancake-ga iyo malawaxa, sidoo kale chapati-ga, canjeerada xitaa waa ku duwan kartaa walaalahayga. Sidoo kale ceeshka, wax walba oo yacni bur lagu sameeyo ayaad ku duwan kartaa. Waxaan ku soo shubay cajiinkii sida aad aragtaan, waana ku warwareejiyay walaalahayga qaaliga ah. Markuu xagga kore ka qalalo cajiinkeeni waa biseel insha Allah. Dhanka kale ayaan u rogayaa sida aad arkaysaan. Sorry, waa iskugu dhegtay. Marka waan kala fujiyay. Marka insha Allah halkaan waxaan sugayaa like 1 minute biidnillaahil kariim inuu aad u guduuto ma rabo oo markuu bislaado waan ka dejin doonaa insha Allah. Sidaa ayaan u baahanahay. Hadda waan ka qaadayaa walaalahayga qaaliga ah ila socda. Already way bislaatay oo ceeriin ma ahan. Hadduu mar cajiinka korka ka qalalo yacni cajiinkaaga wuu ku bislaaday. Don't worry insha Allah. Ha isdhihin waa qayrin. Sida ayaan ku soo wadayaa walaalahayga qaaliga ah oo markii aan malawaxa soo dubo ayaan isku soo laabanaynaa. Cajiinkana aad ayaad u khafiifinaysaa oo cajiin culus kama dhigaysid si aysan hadhow ku dhibin markii aad khudradda dhexda ka gelinaysid walaalahayga sharafta leh. Marka insha Allah walaalahayga waad arkaysaan biidnillaah goordhow waan rogayaa. 2 xabo ayaan idin tusayaa. Markii aan soo dhammaystiro ayaan isku soo laabanaynaa dubista malawaxa ama cajiinkeena. Markii aan soo dhammaystiro oo aan soo wada dubo maasha Allah aad ayuu u badan yahay. Marka ma rabo in aan waqtiga idinkugu dheereeyo ama waqtiga aan idinka lumiyo insha Allah. Waan soo koobaya. Waxaan isku dayayaa inaan aad u soo koobo insha Allah. Idinkana aad fahantaan oo aad ka faa'iidaysataan biidnillaahil kariim. Marka walaalahayga qaaliga ah sidaa ayaan iskula soconaynaa insha Allah. Markii aan soo dhameeyo ayaan isku soo laabanaynaa hadduu Rabbiga awoodda leh inuu saamaxo. Ahbaabi haddana waxaan sameysanaynaa qaybtii u dambeysay. Halkan waxaan ku haystaa cajiinkii aan soo dubay, farmaajo, mozzarella, sidoo kale digaaggii aan soo karinayay iyo khudraddii sida aad u wada jeedaan way noo dhammaystiran tahay. Adeeggeeni aan isticmaalaynay ama waxyaabihii aan soo wada karinayay halkan ayay ku dhan yihiin.
marka insha Allah walaalahayga qaaliga ah farmaajada aniga ayaa soo hooshay iyadoo hoolan oo diyaarsan waad helaysaa supermarketka ayaad ka helaysaa insha Allah ama dukaamanka meelaha baajariga lagu iibiyo hilibka insha Allah waa lagu gadaa iyadana meelaha marka insha Allah hadda walaalahayga qaaliga ah waxaan isticmaalayaa qudaarteeni mala wixii ayaan ku dhex riday soo marka hadda digaagii ayaan ku sii dhex riday oo saaray intaa kadib farmaajadii ayaan kor kaga sii shubay ama cheese hadba saad u taqaanaan ama jubno insha Allah marka walaalahayga waan laabayaa sida aan u laabayana waan idin tusi doonaa ilaa iyo dhowr xabo si aad u fahantaan biidnillaahi alkariim xabadii koowaad ayaan hadda laabay haddana xabadeeni labaad ayaan laabayaa sidaad aragtaan ama aad arkaysaan qudradii ayaan ku riday walaalahayga marka insha Allah mar dhow digaagii ayaan soo qaadanayaa digaagana sidaa ayaan usoo dhuudhuubay oo sidaa ayaan u saarayaa insha Allah hadda waxaan ku shubay cheeskeeni cheeska caruurta ugu dadaalo walaalahayga qaaliga ah aad ayuu u koriyaa oo lafaha ayuu u dhisaa maasha Allah caruurta aad ayuu ugu wanaagsan yahay marka insha Allah la ogaada haddii ilmahaaga dhuudhuuban yihiin ama caato kaa yihiin way kuugu wanaagsanaanayaan biidnillaahi alkariim si aad u aragtaan saxankii hadda halkan ayaan soo dhigay walaalahayga marka insha Allah waxaan ku darayaa haddana qudaarteeni waxaan filayaa in aad si wacan ugu jeedaan biidnillaah stepkii hore unbaa marayaa insha Allah noocan oo kale wuu ku jiraa channelkayga anigoo design kale aan u sameeyey oo si balbalaar ah kan hadda waa si dhuudhuuban oo dhaadheer insha Allah videogaas kale waa si yacni balbalaar ah insha Allah waana ka helaysaan haddii aad dib ugu laabataan channelkayga walaalahayga soo marka hadda xabadii kale ayaan sameynayaa marka insha Allah sidaa ayaan kusoo wadayaa walaalahayga qaaliga ah biidnillaahi alkariim sidii kuwii hore unbaa marayaa aan maray waxaan filayaa sida loo laabayo inaad arkaysaan si wanaagsan halkaana gacanta ayaa ku celinaysaa walaalahayga si aysan kaaga kala daadanin qudaarta dhexda ku jirta markii aad laabaysid gacanta ayaad ku haynaysaa meesha dhexda biidnillaah marka hadda xabadihii u dambeeyey ayaa maraya walaalahayga markii aan intaan idin tuso inta dambena aniga ayaa iska soo dhammaystiri doono hadduu rabbiga awoodda leh ii saamaxo walaalahayga daawasho wacan ayaan idin leeyahay fadlan haddii aad ka heshaan videogan like saar asxaabtaadana la wadaag ayaan ku leeyahay insha Allah ana wixii aan aqaano waan idinla soo wadaagayaa biidnillaahi alkariim inta yar ee aan garanayo insha Allah walaalahayga walow aan wax badan garanaynin biidnillaah wixii wanaagsan oo markaa aad taqaanid waxaa wanaagsan in aad walaalahaaga la sheergaraysid sadaqa jaariyana ee kuugu noqoto adiga marka walaalahayga daawasho wacan insha Allah sidan ayaan kusoo wada duuduubay walaalahayga sharafta leh intan iyo in kale oo la mid ah ayaa ii taalo soo marka intan hadda waan soo wada duubay insha Allah waana arkaysaan waa 6 xabo intan haddana waxaan aadeynaa dhanka stoofka oo aan ku karin lahaa insha Allah ovenka waad gelin kartaa biidnillaahi alkariim haddii aad rabtid waan idiin soo gelin doonaa isagoo ovenka lagu duwaayo walaalahayga sharafta leh haddana waan soo karinaynaa ila socda hadda birtii baanka ayaan kusoo shubay walaalahayga saliid yar waana marmariyey wax aad u badan ma ahan insha Allah sida aad arkayseena malawaxa markii aan koow soo duwaayay ama markii hore inaba wax saliid ah uma aan dhaweynin oo ma aanan kusoo dubin waa qaleel insha Allah marka walaalahayga hadda sidan ayaan u duwayaa dhanka hoose markuu bislaado dhanka kale ayaan u rogi doonaa dhanka kale ayaan u rogayaa walaalahayga insha Allah kolba dhinac ayaad u gadinaysaa haddii saliidda kugu yaraato waxaad ku marinaysaa brushkaas aniga haddaan isticmaalayo insha Allah dhanka kale ayaan u rogayaa biidnillaah guduudka haddii aad rabtid guduud saa'id ah waa ka dhigan kartaa
haddii aad rabtidna guduud medium ah waad ka dhigan kartaa. Marka choiceka adiga ayaa leh walaalahayga qaaliga ah. Insha Allah qofba wuxuu jecel yahay si marka insha Allah walaalahayga aniga kolba si ayaan u gadinayaa kolba dhinac biidnillah. daawasho wacan ayaan idin leeyahay walaalahayga. dhanka kale ayaan haddana u gadiyey oo wax yar ayaa dhiman insha Allah. waan ka bixin doonaa goordhow walaalahayga qaaliga ah insha Allah. soo marka sidaa ayaan kusoo wadayaa qaybtana biidnillah alkariim. iyadana dhowr xabo ayaan idinka tusaya insha Allah. soo markii aan mid walbaba ku ridayo in yaroo saliid ah ayaan marinayaa baanka ama aan ku shubayaa si aysan yacni igaga dhegin malawaxeena. soo marka saliidda waxay kaa caawinaysaa inuu ku guduuto malawaxa maasha Allah, oo sida rootigii oo kale uu ku noqdo ama kalar wanaagsan uu ku yeesho. marka insha Allah kolba dhinac ayaan u gadinayaa sida ayaan kusoo wadaya walaalahayga qaaliga ah. daawasho wacan ayaan idin leeyahay biidnillahi alkariim. haddana waxaan dubayaa dhowrkii xabee u dambeeyey, labadii xabo u dambeysay walaalahayga. insha Allah waan soo dhammaystirayaa biidnillahi alkariim. sidaa ayaan uga qaadayaa markuu kalarkaas ii noqdo insha Allah. dhanka kale ayaa u rogeysaa haddana wax yar saliid ayaa marinaya sida aad u jeedaan. videogana speed ayaan ku furay walaalahayga si aan timeka usoo koobo. idinkana aad idinkugu fahansiiyo walaalahayga. ugu dambeyntiina waa kan walaalahayga qaaliga ah. markii aan soo dhameynay cashadeennii caawa sidan ayay kusoo baxday, aadkii u macaan una quruxda badan maasha Allah, borotiinna leh. marka walaalahayga waxaan rajeynayaa inaad videogeena caawa ka hesheen maasha Allah. wax alla wixii aad haysatid ayaa ku cuni kartaa biidnillahi alkariim. haddii aad haysatid tomato sauce ama tomato ketchup sidoo kale mayonnaise waa ku cuni kartaa. wax alla wixii markaa oo gurigaaga ku yaalo. haddii aadan haysan intaaba shaah ayaa ku cabi kartaa biidnillahi alkariim. marka walaalahayga hadda waxaan ku darsan doonaa anaga tomato ayaan ku cuneynaa biidnillah insha Allah. walaalahayga intaan haysan ilaahay subxaana watacaala ha siiyo risiq kheyr qaba, inta haysatana caafimaad ay ku cunaan biidnillahi alkariim. haddana waxaan idinku dhaafayaa asalaamu calaykum.